نبي محمد وحو الله عليه الصلاة والسلام حديث صحيحها رسول كاوحو حسين ولا كل من نبي إبراهيم هبين كيلا ديلميين فرين بو إنه صوفر نبي إبراهيم وحو أمدي سلاني جارسي وحارضو شيكتاج أرنت قلا ماشى جنة الله يراضه وكاي الهاي وأوليدي سكو عسوم أيوه طيبة التربة عذبة الماء وإنها قيعان قرزها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. عيد جنة وحوية مد وناكسن وأدقون بيهد ومعايهين ومالس كسمانه بهرائية بورائية ترنترنتونا لهين وحلقوا بيريو البرواقة يدا يكون بحرانا وذكريا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. qof waliba oran kara odayga iyo islaamta iyo mid mutacallima mid waliba wardiga iska kooban uu akhri kara isagoo boqolaal iyo kumayaala wad beeraysaa jannadii waxyaabaha jannada lagu beero waxa kamid ah istighfaarta astaghfirullah wa atubu ilayhi astaghfirullah 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 ma dadkeenu waa khaldaan astaghfirullah waa qalad astaghfirullah taasoo lagu dhawaaqay سيد استغفار نبي يقول عليه الصلاة والسلام استغفار توحى هرمود وأنا تلاهضه لا إله إلا الله لا إله إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ديك رجع قفك كل واقع قال إنك هرها طول إنت قال إنك الدنبت شندو قال hadduu gelinka dambe ku dhawaaqana gelinka hore jannadu galaya kolba waqtiga uu ku dhawaaqo jannu ku helaya waa wixii jannada lagu helay waaba dikriga iska koobanba qofku waxa xafidi kara aayatul kursi nabigu wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam qofka akhriya salaad walba marka baxa aayatul kursi qofka akhriya lam yamna'hu min dukhul aljannati illa an yamut jannada inuu galo waxba ka hor joogo inuu dhinto waxa isku beegmayo isagoo ku wardiyay oo salaad ka baxay isagoo naftu ka baxdo jannadu cala tuulu galaya lagu leeyahay bismillahi al'adam baa ku jira shaydaankiina way ka eriyaysa waxa kamida waxyaabo nabigu xusay inoo sahlan baa kooban ee jannada lagu galayo ducadan suuqa marka uu galayo qofku inuu akhriyo لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير waxaa loo qorayaa abu nabi عليه الصلاة والسلام ألف حسنة كن أو حسنة معناه waxa way kun lagu dhuftay 1 milyan oo xasana loo qoraya 1 milyan oo dambina waa laga dhaafaya 1 milyan oo darajana waa loo dalaacaya waxaynu uga jeednaa wabuniya lahu baytan fi aljanna gurina jannada looga sii bineeyay Soomaad jeclayn dii meel aad soo degayso guri goglan oo salaxan oo guriyaha ugu qaalisan ee ugu raaxo badan uu sii diyaarsan yahay gurigaas hadii aad intaas ku wardido aad akhriyayso waxyaabaha cajiibka ah ee inoo sahlana jannada wadooyinkeeda waxa kamid ah su'aalul janna inay ilaahay barina jannada ama af carabi ku bari ama af Soomaali ku bari luqadda taqaano ku bari ilaahay luqadaha dhan in isaga ayna baray subhanahu wa ta'ala rasuulku wuxuu sallallahu alayhi wa sallam waa xadiis isna saxiixa albani silsiladiisa saxiix kaga dhigay haddii qofku uu 7 jeer yiraahdo ilaahay uu naartaan ka magan galay ilaahay uu naartaan ka magan galay carabi iyo Soomaali mid ku doonaya ku lahaa 7 jeerna yiraahdo ilaahay uu jannadan ku weydiistay naartii la hadlaysa waxay leedahay ilaahay uu adoonka iga ka magan galay ka badbaadi iga badbaadiyo iga jooji Allah aqbalay ilaahay uu adoonka ka weydiistay halkan keen bay leedahay jannaduna ilaahayna subhanahu wa ta'ala isaga u fasaxay uu ku geynaya hay ku yeelaysa 7 jeer inaad ku celiso waxa kamid ah qowlu la ilaha illa allah bala shahaadadii suuqa yeelatay dad badan baa haystaa shahaadada in lagu islaamo la joojiyo intoo lagu islaamo islaamka lagu soo galo furaheedii ay tahay in halka la iskaga xiro shahaadadu waa wardiga ugu qaalisanba wardiga aad baalal ku yeelanaysid ku ilaahay xaqiisa u duulaysa waa shahaadada marka intaad kari kartaad badinaysa لا إله إلا الله 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 النبي عليه الصلاة والسلام وحكول حديث كي صحيحة من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة قفك مركي نفته كسيب بحيثه لا إله إلا الله انت كل واقع جندو قلي يا النبي عليه الصلاة والسلام ساد لا دد بها بونتي انت انو دد كسيب انا يحيجين لهي ولا مثال هبل كلهاي هبل محاد سينيسا aniga maxaad siinaysaa inaan shahaadada seejin oo aynaan ka xaraajin
mid baaba laga yaabaa inuu ku xanaaqo u ihahdo maanaa dhaxalkayga usoo dhigatay sidaa ku ashahaado seego marka waxaa muhiima laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allah laa ilaha illa allah in la badiyo salaada xusay nabigu calayhi salaatu wasalaam qofka ku dadaalaya salaada ee aan xaqiraynin dayacaynin ilaahay agtiisa cahdi buu dhigtay iyo ballan inuu jannada geliyo hadduu xataa gef ku dhacaba gef baa ku dhacee ilaahay agtiisa ballan buu dhigtay qofka tukanaya inuu jannada geliyo sidoo kale jannada inuu ku gelayaabuu nebigu xusay calayhi salaatu wasalaam qofku hadduu ku dadaalo 12 ragcadood ee raatibada la yidhahda salaadaha raaca 2 ragcadood oo ka horeeya subaxa 2 ragcadood oo duhurka ka horeeya 2 ragcadood oo ka ama 4 ragcadood duhurka ka horeeya way jiraan labaduba iyo 2 duhur ka dambeeya 2 maghrib ka dambeeya 2 cishaa ka dambeeya marka duhurkii baa wuxuu leeyahay maxay 6 buu leeyahay iyo salaadaha kale oo 6 casarkii markaa kumu daray nabigu calayhi salaatu wasalaam marka 12 ragcadood hadduu qof ku dadaalo jannadu galayaa buu rasuulku sallallahu alayhi wasallam waxa tabnaado waxyaabaha jannada lagu galayaa man khutima lahu bisiyam yawm dakhala aljanna hadithna sahih xudayfa warinayo qofka isagoo sooman khaatumadiisa soomo u dambeeyo maalinka ama sooman ama maalmaha u dambeeyay soomayay soonku fadligu leeyahay jannadu ku galaya infaaqa isaguna lamida oo ka 12aad wax bixinta iyo shayga deeqda nabiga calayhi salaatu wasalaam waqtigiisii magaalada madiina waxa ku yaalay ceelaad u biyo badan oo bulshadu ay u baahnay Roma la oranay biyo Roma marka ninkii lahaa uu nabigu ku yiri il jannada ma ku iibsano umada maadsiin de wax kale aan haynin buuriyo inta waan u baahana Uthman ibn Affan radiyallahu anhu wa ardaahu ayaa ka iibiyo ninkii lacagtiisii siiyay lacag markaa qaali ahayd ayuu ka bixiyay 35 dirham oo qiimo waqtiga lahaa laakiin nabigu afka u soo dhuubay wuxuu yiri ceelkan isaga ah haddii aan bixiyo ma ku helayaa ishii aad sheegaysay ninkii uu ku heli lahaa ila waadiga yiri haddaad ceelkan bixiso isha jannada ku helaysa ha waad ku helaysaa buu daba ilaahay daraadii baan u waqfay marka in dadkan haraaday ee xiiqeed duruuftu ah si ceelal biyo loo qodo oo la siiyo wixii la heli karayo iyo sadaqada sheekhuba markii dhaweydii sheegayay waxaad u qiimo badan weyn noocyadeeda kala duwan biyahana si fadli badan waxa la 12aad oo wadooyinka jannada kamida alxifsu ala birri alwalidayn labada waalid samafalkooda aad loogu dadaalo labada waalid samafalkooda aad loogu dadaalo Aisha waxay tiraadeen baan ku riyooday inaan jannada galayo quraan la akhriyo baan maqlay markaas aan waayo qofka quraanka akhriyay Haritha ibn Nu'man ninkii la oran jiray baa jannada ku jira quraanka akhriyay baa leeyahay nabiga uu sheegay markaas uu kadhalika albirru samafalka caynkaas ninkaas in waalidkiisi uu samafali jiray buu ahaado samafalkaas uu ku helay aljannatu tahta aqdam al-ummahat jannadu waxay ku jirtaa hooyada agteeda hoosteeda marka haddaad hooyada galka qabatood maslaxatood u samafasho way kaaga dhaqaaqay haddii kale lugtii aw sabiray ka saari